sida caloosha weyn ee kuugu taalo la iskaga yareeyo. Assalaamu calaykum akhyaarta, kusoo dhawaada xunta. Haddii aan u fiirsano dumarka, ragga, dhalinyarada, caruurta, dhibaatada ugu weyn ay haysata waa calool. Caruurtii yareereed dharka way ka xiran la'yihiin, aabihii sidoo kale, hooyo iskabada. Xaqiiqdii waxaa jirta arrin aan inta badan lagu baraarugsanayn. Jirkaaga halka uu faadka ku keedgaraysanayo waxay ku xiran tahay genetikaaga. Adigu taa waxba kama bedeli kartid. Dad baa xeerta ama baruurta ku qaada lugaha, dad baa barida ku qaada, dad baa cajarada ku qaada, sidoo kale dad baa caloosha ku qaada. taa cidna waxba kama bedeli karto, balse waxaynu wax ka bedeli karnaa hadba fahankeena ku aadan fitnesska iyo exercise-kan anagu samaynayno. Aniga markaan iska hadlo, waqti waxaa jirtay culayska aan la dhibanaa, kaliya aan ku fikiri jiray maalinka aan iska ridi lahaa. Waad iska taqaanaa markaad calool weyn leedahay, caqabado badan ayaa iska jira, sida shay walba oo qurux badan waa inaad firiisa iska raadsataa. Dhalintii lama cayaari kartid, haddii aad la cayaartana waa lagu yasayaa. Daal ayaa kuu dheer oo xoogaa markii aad orodaba neefta ayaad tuuraysaa. Leesinimo waxaa kale oo aad ku bishaaraysanaysaan oo aan idinkugu darayaa, faadka ku saaran ma dooran kartid keliya in aad ka riddo, haddana halka meel ee adigu aad isleedahay way ku dhibaysaa. Tusaale ahaan, caloosha keliya in aad faad ka riddo, jirka kalena aad u dhaafto ma suurtagelayso, waayo inta badan dhalinyaradu waxaad maqlaysaa ayagoo kugu leh saaxiibow ma rabi qaybta hoose inay wax ka dhacaan, keliya dhexdaan rabaa in aan la dagaalamo. faadkuna sidiisa waxaad ku bishaaraysataan wuxuu ka dhacaa inta badan meelaha uu ka yaryahay, meesha uu ku badan yahayna gadaal ayuu u dhigtaa. Inta labaad waxaan idiin sheegayaa, inta badan faadka laguma rido exercise. dad baa waxay ka dhaadhacsan tahay inay exercise gareeyaan inay macnaheedu tahay inuu faadka ka dhacayo. tusaale ahaan, jimka marka aad timaado oo aad isku wareeriso caalamiitooyinka la sameeya ee caloosha ku tacalluqa ama caloosha target gareeya, waxaad ogaataan caloosha marka aad exercise gareynaysid waxaad raadinaysaa ama aad rabtaa in aad soo saarto murqaha gudaheeda ku jiro, taasu faadka saaran kama ridayso. sida marka aad bicep curl samaynaysid oo aad murqaha gacnaha ka shaqaynaysid ama murqaha xabadka aad ka shaqaynaysid, aadan faadka saaran aadan ugu ridaynin, bal aad dhisaysid murqa ka soo horeeya ama murqa goobtaas aad exercise gareynaysid saaran. haddii aad rabto marka inaad baruurta ku saaran dagaal xoogan la gasho adiga oo aanan kala saarsaaraynin, waa inaad laba arrin maskaxda aad ku haysaa: kow, dietka; labana waa exercise-ka. haddii goolkaaga iyo waxa aad rabta yahay in aad xeerta un la dagaalanto, caloosha keliya aad yarayso, waa inaad jimicsigaagu uu ka koobnaadaa resistance training iyo cardio. tusaale ahaan, marka aad samaynayso resistance trainingka oo ah biraha lagu exercise gareeyo, waxaa dhacda in murqahaaga damage soo gaaro. wax badan waana ka soo hadlay, biraha marka aad ku train gareynayso, inta badan murqahaaga cadaadiska exercise-ka kaga imaanaya dartiisa damage ayaa soo gaaraya. hadhow marka aad guriga tagtana, nasashada aad ku jirto, jirkaaga wuxuu bilaabayaa inuu damagekaas repair ku sameeyo ama uu bogsiiyo si maalinka kale aad diyaar ugu ahaato. marka resistance trainingka ama birta lagu train gareeyo, laba faa'iido ayay meesha ku leedahay. waa tan koowaade, intaad exercise-ka joogtana calorie ayaa lagaa gubayaa. guriga marka aad tamaanidna, intuu jirkaaga repairka ama caafimaadinta jirka uu ku jirana calories ayuu gubayaa. marka goolkoodu yahay fat loss-ka ama raba in ay miisaan iska ridaan, saddexdan arrin waxaad isku daydaan in aad goos dambeedka aad ku qabataan. wax dambe oo aad u baahan doontaan ma jiri doonto. mid waa kalorigaaga oo enerjiga ama tamarta kusoo galaya ah, labana waa carbohydrate-ka aad cunayso, saddexna waa proteinka. laga yaabaa in arrinkan wax badan lagugu wareeriyey, balse videoga maanta dhammayso, wax badan ayaad fahmi doontaa. calorieskan ku bilaaw. dabcan waa tamarta ama enerjiga ku jiro cuntada aad cunto. qof walba oo naga mid ahna maanta waxaa jirta qiyaas enerji ah oo jirkiisa u baahan yahay, xitaa haddii aadan ahayn dadka xisaabiyo. tusaale, haddii maanta jirkaaga loogu talagalay 2000 oo kalori ah inuu maalinkii dhan uu qaato, misena aad qaadato 2200 oo kalori ah, waad 200 ka kormariso, waxaad ogaataa automatically miisaankaaga uu kordhaya. waxaa la mid ah haddii maanta 2000 oo kalori adiga lagugu talagalay aad qaadato 1700 oo kalori ah, dabcan jirkaaga wuxuu bilaabayaa inuu miisaanka iska rido 300 oo calories aad hoos u dhigtay awgeed. waxaad keliya isku daydaa in aad xisaabiso calorieska jirkaaga soo galaya bil ama 2 bil inta aad qiyaasta la qabsanayso, kadibna waxaad arkaysaa miisaanka si drastically ah ama degdeg ah isagoo kaaga dhacaya. qodobka labaadna waa carbohydrate-ka. dabcan carbohydrate-ka waa qayb ka mid ah cuntooyinka aan cunno, wuxuuna u qaybsamaa
mid xun iyo mid wanaagsan. Carbohydrate-ka wanaagsan waxaa lagu yaqaanaa marka uu caloosha tago waqti ayuu qaataa, dheefshiidkana wuu ku daahaa, enerjigiisana si tartiib ah ayaa loo soo sii daayaa. Halka carbohydrate-ka xun markuu caloosha galo si degdega loo dhammaystiro hawshiisa, dheefshiidkana uu enerjigiisa hal mar uu soo wada fasaxo. halkaas mar uu soo wada fasaxayana waxaa ka dhalata in jirka uu ku wareero halka uu geyn lahaa enerjiga tirada badan, kadibna sida qashin qubkii oo kale calooshaada uu iskaga sii daadiyo. Carbohydrate-ka xunxun waxaa madax wax dabcan wax walba oo sokorta macaan lagu qurxiyey, waxaana laadar u ah wax walba oo saliid lagu duway misana cusbo lagu qurxiyey. Qodobka saddexaad waa qaadashada borotiinka. Marka hore dadku way ku kala duwan yihiin hadba sida uu miisaanka uga dhacayo, waxaana xukumay in miisaanka si dhaqsi ah kaaga dhaco qofka murqaha jirkiisa saaran inta ay la eg yihiin. waxaad ogaataa haddii aad murqa koriso oo aad isku daydo inaad murqa dhisto, faadka jirkaaga ku jiro waqtigiisa uu soo gabagaboobaya. aanu dhahno haddii jirkaaga murqa fiican uu leeyahay, inta badan waxa u sahlanaato in baruurta uu la dagaalamo. in muruq kuu dhismana borotiinka ayaa u macalin ah. waa in jirkaaga borotiin fiican uu helaa. isku day marka 3 waqti ee aad cuntada cunaysid in qayb borotiin ka mid ah cuntadaada laga helo. noloshaadana waxaan kugula talinayaa weligeed inay 3 saakol aysan ka dhex bixin. saakolka inay ka dhex bixinin waxay tahay jimka marka aad tagto isku day inaad u train gareyso sida maalinka inuu yahay maalinka kaliya ee lagu dhahay train garey. guriga marka aad timaadidna cuntada aad cunaysid borotiin ha laga helo. wixii ka dambeeyana faadka jirkaaga ku jiro waqtigiisa ayaa soo dhammaanaya. videogeenan inta ayuu ka egyahay. waa walaalkiin Sabriye Axmed Xaashi. Assalaamu calaykum.